Thank you so much. Please subscribe, share and like. walaashin ubax warsame iyo marka la talaad isbuucan waxaan doonayaa inaan wax yar ka iraahdo laba kalmadood bal caruurta iyo waalidka siiba hooyooyinka iyo gabdhaha waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo gabdhaheena teenagerka markay yihiin waliba way isbedelayaan hormoonkooda isbedelaya jirkooda isbedelaya maskaxdooda isbedelaysa sidii wax u eegaan baa isbedelaysa challenge badan bay kugu sameynayaan waalid hadaa tahay waxay isku dayayaan inay waxyaabo badan ay adiguna ogeyn isku dayaan inay sameeyaan annaga laftigeena waxaan isku daynay waxyaabo badan inaan sameeyno waalidiintan anagoo ka qarinayno markaan yareen waa soo marnay gabadhaada waxaa laga yaabaa inay su'aalo badan ku weydiiso mararka qaarkoodna waxaa laga yaabaa inaysan kula hadlinba ay isxidho inay qolkeeda ku jirto inay adiga kula hadlin aabaheed la hadlin taas macnaheeda ma aha inaysan doonin inay kula hadasho wiilkuna waa sidoo kale de asagana sidoo kale laakiin moor gabdhaha waxa weeyaan waxaa laga sugayaa laga rajeynayaa gabdhaha inay hadlaan ay kula hadlaan mararka qaarkood laakiin waxaa jirta inay isbaxiraanba annaga haddii su'aalo badan nala weydiiyo waxaan dhahnaa maxaa su'aal badan nala weydiinaa su'aal badana haddii ay ilmuhu nala hadlina waxaan leenahay ilmahaaneed muxuu la aamusan yahay ma hadashid ilmihii confuse ay nagu noqdeen marka ma yaqaanaanba waxa anaga ka rabno haddaa hadlana waxay isleeyihiin waxaa laleeyahay hadal badnidaa haddaa aamusana oo markii hadal badnidaa la dhaho oon aamusayna waxaa laleeyahay maxaa u aamustay marka waxay leeyihiin waalidku intay idin raacnaa dhinacebaa idin raacnaa idinka marka ha loo dulqaato ha lala hadlo si tartiiba oo degan oo qabow oonan maaragtay laisku dayaynin in aad si khasaba kaga soo saarto hadalka waa in loo dulqaato waa in tartiib loola hadlo si ay ayaguna u dareemaan inay ku iman karaan oo hadal iyo wixii niyadooda ka gooxa ay kula wadaagi karaan marka dulucda hadalkayga waxay tahay isbedel badan baa ilmaha ku dhacaya markay teenager yihiin gabdhii wiilalba siiba gabdhaha maadaama ay mar walba ayaga damiirkooda iyo hadalkooda waxay dareemayaan ka hadlaan markaan ku niraahno hadal badnidaa ilmihii waa isxirayaan marka aan isku dayno inaan si tartiiba oo qabow oo degan ula hadalno ubadkeena ogaada ilmaha ma aha hadal kaliya way dareemaan sida annaga aan u dhaqmeynay dareemaan inay ku imaan karaan iyo in kale iyo inaad hadalka ku celinayso iyo inaad ka xanaaqayso kulli way sii dareemayaan marka ha loo dhimriyo si tartiib ha loola hadlo haddaysan doonin inay adiga kula hadlaan la hadal sii dad ay la hadli karaan sometimes haddayn doonin inay kula hadlaan weydii waxaad tiraahdaa hooy tarabi ma u baahan tahay dhakhtar ma kuu geeya qofaa la sheekaysatid warayso wax badan ay kuu sheegayaan mararka qaarkood waxaa laga yaabaa inay qof kaleeto oo adiga aan ahayn ay kaaga kalsoon yihiin waayo ma yaqaanaan adiga sidaad markay wax kuu sheegaan sidaad adiga uga falcelinayso inaad ku xanaaqda bay ka baqayaan marka isku day inaad tiraahid sida adiga aad rabtid qofkaad rabtid inaad la hadashid waan kuu raadinayaa waa caadi haddii ay doonayaan inay la hadlaan qof oo counselor ah ama therapist haddii doonayaan inay la hadlaan weliba hadda bandemiga inta lagu jiro waxaa dhacday ilmihii in oo dhibaatooyin badan soo food saartay iskuullada guriga laga dhigto saaxiibadood aysan arkaynin marka la sheekaysta ilmihiina marka waxay idin sheegaan si tartiib ah u dhagaysta si u dhamriya meel ha ku dhiginina aniguba hooyaday waalidkay lamaan hadli jirin ama hadal kuma celi jirin ha oranina anaa waalid ah kaliyana yay kaagaga dhigin u dhimriya oo adiga qabtid ilmahaaga yaysan ku seejinin waa idin salaamayaa khayr baan idin rajeynayaa insha allah waxaan rajeynayaa in waxa ka qaadatiin hadday ay noqoto waxaan rajeynayaa in oo videogan wax un aad ka qaadatiin insha allah markaad dhegaysataan midda kaleeto waxaan rabaa inaan isii xasuusiyo ogaada at the end of the day we love our children you are the reason oo meeshan wax walba oo sameynaysid waxaa jeceshaa ilmahaaga inay noqdaan kuwa ugu wanaagsan marka ilmihii aad jaceylkaas u qabtid ood leedahay ilmahayga waan jeclahayda markasta aad ku wardinayso nafsadaada keligaa isku sheegayso waa inaad ayagana u sheegto sheegid kaliya ma ahay waa inay kaa dareemaan oo kaa arkaan inaad jeceshahay hawl bay u baahan tahay dulqaad bay u baahan tahay adiga xataa qabkaaga inaad iska ilowdo halkaa iska dhigtay u baahan tahay qab weyn hadduu kugu jiro ilmahaaga jaceylkoodii adigay dhexdeena xiriirka ahaana wuu lumayaa marka waa ka xumahay haddaa idinku yaro dheereeyey laakiin waan idin salaamayaa kulligiin meel kastoo joogtiin ilaahay ha naga dhigo kuwa maaragtay uu xafido ayagii ubadkoodaba salaan qiimo la idin soo diraya waa salaamantiin salaamu calaykum share